It's my pleasure to welcome you today to Mogadishu for the high-level partnership waxaa farxadii maanta inaan Muqdisho ku soo dhaweeyo madasha sare ee wada tashiga mustaqbalka Soomaaliya waxaan mahadcelin u jeedinayaa qaramada midoobay oo shirkan ila gudoominaysa isla markaana markasta ay ka go'an tahay taageerada aan joogsiga lahayn ee ay siiyaan ama ay la garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed caadiyan shirkan waxaan diiradda ku saarnaa waxqabadkii 6 bilood ee la soo dhaafay si kastaba ha ahaatee uma maleynay in shirkan maanta aan ka doodno mustaqbalka Soomaaliya anagoo qorshaha ku darsanayna wixii ka dhacay what has occurred maamulada Puntland iyo Galmudug labadii toddobaad ee la soo dhaafay ugu horeyntii iyo ogolada inaan u mahadceliyo dhexdhexaadintii shariifka ahayd ee uu sameeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid iyo kooxdii la shaqeynaysay toddobaadadii la soo dhaafay waxa ay difaaceen danta waddanka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ayagoo diiday wax kasta oo ogolaaday heshiis nabadeed waxaan ku faraxsanahay inuu ogolaaday dhexdhexaadin inuu arrinkaasi ka sameeyo asagoo adeegsanaya qaab diblomaasiyadeed waxaad sidoo kale ii ogolaataan in si waadax ah aan u cadeeyo dhibaatada ka dhalatay dagaalkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo Soomaaliya maanta ma awoodo in arrinkaasi uu mar kale dhaco isla markaana mustaqbalka uu soo laabto uma dulqaadan doono arrinkaasi mana ku laaban doonto fowdadii la soo dhaafay waxaana mar kale ku celinayaa Soomaaliya waa ay soo martay dhibaato in ugu filan have made enough of wars in the past.